Salaan sare dhammaantiin magacaygu waa liibaan cali xirsi ku soo dhawaada taxanahan gaaban oo ku saabsan taariikhda qoraalka af Soomaaliga. Qaybtii hore ee saddexaad waxaan uga soo hadalnay ama ku soo qaadanay alifba'yadii ay Soomaalidu ku taliyeen in af Soomaaliga lagu qoro. Qaybteennan afraad waxaan ku soo qaadan doonaa sooyaalka wada socodka af Soomaaliga iyo farta Laatiinka dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad. In af Soomaaliga lagu qoro alifba'da Laatiinka waxay soo bilaabatay qarnigii 19aad waxayna soo socotay ilaa iyo qorista af Soomaaliga si rasmiga ah loogu dhawaaqo sanadku markuu ahaa 1972. Qaybtan waxaan ku soo gudbinaynaa sidii ay ku bilaabatay in farta Laatiinka loo adeegsado qorista af Soomaaliga iyo sidoo kale qaabkii ay marka ka dambaysa u soo kordhayeen qoraalada af Soomaaliga ah ee far Laatiinka ku qoran. Sidaan ku soo sheegnay qaybteennii labaad ee taxanahan, imaanshihii reer Yurub ay ku yimaadeen geeska Afrika waxay soo kordhisay in af Soomaaliga iyo naxwihiisaba lagu falanqeeyo afafka looga hadlo waddanadii ay dadkaasi ka yimaadeen. Waddannadaas afaf kala duwan ayaa looga hadlaa sida tusaale ahaan Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Jarmalka, balse xaqiiqada jirta ayaa ah in dhammaan afafkaas farta Laatiinka lagu qoro oo far Laatiinka ama alifba'da Laatiinka loo adeegsado. Haddaba cilmi-baarayaashaasi markay dadka Soomaaliyeed ka wareysanayaan afkooda iyo dhaqankooda, Soomaalidu af Soomaali bay ugu sheegi jireen. Tusaale ahaan maahmaahooyinka, sheekooyinka, heesaha, gabayada iyo wixii la mid ah. Reer Yurubkuna fartooda Laatiinka ah ayay ku diiwaan gelin jireen. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa buuggan oo ay ku yaalaan qoraallo uu diyaariyey barasare Leo Range. Magaca buugga waxaan ka garan karnaa in loola jeedo af Soomaaliga. Buuggani wuxuu soo baxay sanadkii 1900 wuxuuna ka kooban yahay 287 bog. Haddii aan buugga gudaha u galno oo tusaale ahaan bogga 127aad furno, waxaan ku arkaynaa qayb waagaas Range ka diiwaangeliyey Soomaalida. Qaybtaasoo la xiriirta siyaabaha ay ragga iyo dumarku u dhaartaan. Waxayna u qoran tahay sidan soo socota. Ragga Soomaalidu waxay ku dhaartaan wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, qoodhay iyo xeraday, wallaahi iyo weysada, wallaahi iyo masaajidda, wallaahi iyo kitaabka, ama xilahay furan inaanan xaajadaa been ka sheegin. Dhanka dumarka Soomaaliyeed iyo qaabkay u dhaartaanna Range wuxuu ka qoray: waa taan aabbahay waayaa, waa taan walaalkay waayaa, waa taan inankayga waayaa, waa taan indhaha beelaa, waa tuu rimaygu iga soo dhacaa inaanan xaajadaa been ka sheegin. Range wuxuu kaloo far Laatiin ku diiwaan geliyey magacyada ay Soomaalidu u taqaano xanuunada ama cudurrada kala duwan. Soomaalidu bukaankooda ama xanuunadooda waxay yidhaahdaan bakooro, cadgo, jadeeco, furuq, fanto, jabti, feero, qabsin, dacar, daaca qurun, qaaxo, daacuun iyo wixii la mid ah. Run ahaantii xoogaa howl ah ayay u baahan tahay in siday tahay loo fahmo oo loo fariisiyo ereyada halkan ku qoran ama wixii haddeertaan aan soo akhrinay. Inta aan hubo ayaan akhriyey, inta kalena idinkaan ka warkeenideeda idiin daynaya oo bal adiguna soo akhriya, fiiriya, wixii aad ka fahamtaan nala wadaaga. Waagaag saaxiibayaal, khiyaarta sharafta leh, qaybteennii afraad maanta intaas ayay ku eg tahay. Qaybteenna shanaad ee soo socota waxaan uga hadli doonaa sidii ay ku sii socotay in af Soomaaliga loo adeegsado alifba'da ama farta Laatiinka ah, gaar ahaan wixii ka dambeeyey sanadku markuu ahaa 1950. La socod wanaagsan, mahadsanidin dhammaantiin. Soo nabad ahaada. Nabaday.